kasta oo sabani karta dibudhaceeda iyadoo ay reeban tahay koraysiimo ku timaada damac siyaasadeed oo ku dhisan kursi jacayl. sagaal dhowrista xuquuqda aasaasiga iyo xorriyaadka lama taabtaanka ee qofka ee dastuurku jireeyey iyo horumarinta hay-adaha u adeegaya. horumarinta saxaafadda iyo xaqdhowrista xorriyaddeeda iyadoo wax ka qabashada gafafka lagu daro saxaafadda loo raaci doono nidaamka halka madaniga ah iyo xeerarka saxaafadda wixii qabyo kaa xeerarkaas la qabyo tiri doono. dib u habaynta hay-adaha xukuumadda sida wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan iyadoo lagu samaynayo baahida qaranka tashiirinta dhaqaalaha dalka iyo inay noqdaan kuwa si dhab ah ugu habaysan u adeegidda bulshada. 12 horumarinta madax bannaanida hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha dowladda ee madaxa bannaan si adeegyada ay bixinayaan u noqdaan kuwa tayo leh kuna salaysan cadaalad. 13 dardargelinta maamul fidinta maamul daadejinta kala xadaynta maamul ahaaneed ee gobollada iyo degmooyinka xaqiijinta cadaalad u qaybinta gudaha dowladnimo saami qaybsiga baarlamaanka iyo tixgelinta tabashooyinka gobollada sool sanaag bari iyo kuhood. 14 iyadoo laga duulayo tabashooyinkii isdaba joogga ah iyo qabyada ka muuqata dastuurka dalka in la furo dastuurka laguna sameeyo wax ka bedel iyo kaas. 15 ka qayb qaadashada adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka iyo horumarinta